bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal halkan waa National TV. ciidamo ka tirsan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka NISA isla markaana ka amar qaata Fahad Yaasiin iyo Yaasiin Frey oo xoog ku galay garoonka Aadan Cadde iyo xiisad ka taagan gudaha garoonka. ciidamo kale oo ka socda dhinaca Rooble oo iyagana dhaqdhaqaaqyo bilaabay. waxaan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda garoonka Aadan Cadde iyo cabsida laga qabo in lagu dagaalamo garoonka. sidoo kale waxaan muuqaalkan ku eegi doonaa beesha caalamka oo diiday go'aankii ka soo baxay wasaaradda amniga gaar ahaan wasiirka wasaaraddaasi Cabdulaahi Maxamed Nuur kaasi oo ahaa in ciidamada hay-adda NISA ay faraha kala baxaan shaqada garoonka Aadan Cadde. xiisad culus oo ka taagan garoonka Aadan Cadde iyo shaqadii garoonka oo hakad ku jirta waxaana isor fadhiya ciidamo ka kala amar qaatay Yaasiin Frey iyo wasiirka amniga Cabdulaahi Maxamed Nuur. xaaladahaasi iyo warar kale ayaan eegi doonaa intaan gudagelin muuqaalkeena subscribe sar YouTube-keena kadibna furo gambaleelka sidoo kale like muuqaalka si uu dad badan u gaaro. waa hagaag waxaa weli uu khilaaf culus u dhaxeeya madaxda ugu sareysa dalka inkastoo maalmihii la soo dhaafay labada dhinac ay qaboojiyeen xiisadda kadib markii cadaadis xoogan la saaray. hadda dagaalka madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Rooble waxa uu taagan yahay gacan ku haynta garoonka Aadan Cadde. xogo aan helayno ayaa sheegaya in ciidamadii ugu badnaa oo ka tirsan hay-adda NISA ay gudaha u galeen garoonka Aadan Cadde isla markaana bilaabeen dhaqdhaqaaqyo culus oo ka dhan ah Rooble. wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Cabdulaahi Maxamed Nuur ayaa 1 January ee sanadkan cusub waxa uu taliyaha ku meel gaarka ah ee hay-adda NISA Yaasiin Frey ku amray inuu ciidamadiisa ka soo saaro garoonka Aadan Cadde iyadoo weli hay-adda NISA aysan ka soo jawaabin hadalka wasiirka. haddana waxaa go'aanka wasiirka amniga ka dhashay dood badan iyo cambaareyn xoog leh. garoonka Aadan Cadde waxaa gacanta ku haya ciidamada hay-adda nabad sugidda Soomaaliya ee NISA oo qaybo kala duwan leh sida ciidanka waran, gaashaan iyo kuwa kale ee dharcadka loo yaqaano. sidoo kale waxaa garoonka ku sugan ciidamo boolis ah balse awood badan kuma lahan garoonka Aadan Cadde. saacadihii la soo dhaafay waxaa garoonka Aadan Cadde ku sii qulqulayay ciidamo aad u badan oo hay-adda NISA ka tirsan kuwaasi oo diidan in wasiirka amniga ama shakhsi ka socda xafiiska Rooble uusan garoonkaasi geli karin ama waxba ka sameyn karin. cabsi xoog leh ayaa laga dareemayaa garoonka Aadan Cadde waxaana qaybo ka mid ah garoonka jooga ciidamo kale oo ka amar qaata Maxamed Xuseen Rooble taliyihii hore ee hay-adda NISA sidoo kalena ah la taliyaha amniga qaranka madaxweyne Farmaajo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa ku amray Yaasiin Frey in uusan maqlin warka wasiirka amniga isla markaana garoonka ay maamulaan ciidamada hay-adda NISA. xiisadda madaxweyne Farmaajo iyo Rooble ayaa markan saldhigatay garoonka Aadan Cadde iyadoo xilli kasto la filan karo in dagaal uu ka dhaco garoonka. warkii wasiirka amniga ee ahaa in ciidanka NISA laga saaro garoonka Aadan Cadde waxaa ka hor yimid beesha caalamka iyo wadamada waaweyn ee adduunka. war qoraal ah oo ka soo baxay xubnaha beesha caalamka ayaa walaac looga muujiyay go'aanka ka soo baxay wasaaradda amniga gaar ahaan wasiirka wasaaraddaasi Cabdulaahi Maxamed Nuur kaasi oo la xiriiray in ciidamada hay-adda NISA ay faraha kala baxaan shaqada garoonka Aadan Cadde ee Muqdisho isla markaana shaqada garoonka ay si buuxda u maamulaan taliska booliiska Soomaaliya. qoraal ka soo baxay safaaradda Mareykanka ayaa waxaa si toos ah loogu wargeliyay Rooble taasi oo lagu sheegay in tallaabada wasiirka amniga ee garoonka diyaaradaha ay walaac gelinayso dhankooda. sidoo kale waxaa la sheegay in safaaradda Mareykanka ay telefoonka kula hadashay Rooble iyo wasiirka amniga waxaana laga dalbaday wasiirka caddaynta qoraalkooda iyo ujeedkiisa iyadoo dhinacyada la faray in ay u furan tahay oo keliya ku mashquulka doorashada. isbeddelka la xiriira ciidamada NISA ee ka howlgala garoonka Aadan Cadde wuxuu quseeyaa oo keliya ciidamada dharcadda ah ee ka howlgala gudaha garoonka diyaaradaha terminalka ma quseeyo ciidamada gacanta ku haya baraha kontaroolada ee laga galo garoonka Aadan Cadde ayuu qoraalkiisa ku yiri wasiirka amniga Cabdulaahi Maxamed Nuur. sidoo kale wasiirka ayaa horay u soo saaray qoraalkan ka horeeyay kaasi oo ku shaaciyay in go'aanka ciidanka hay-adda NISA looga saarayo garoonka Muqdisho la qaatay kadib markii ay bateen cabashooyinka ay ka soo gudbiyeen hay-adaha dawladda ee ka howlgala gudaha garoonka isagoo qoraalkiisa ku xusay inay ku kaceen xadgudubyo isugu jira gacan qaad iyo handadaado joogto ah kuwaasi oo cadeymo loo hayo sida uu sheegay wasiirka amniga.
wararkii ugu dambeeyay garoonka markaan eegno xiisad culus ayaa ka taagan ciidamo ka amar qaata Yaasiin Farey iyo wasiirka amniga ayaa isku hor fadhiya waxaana saacad kasta la filan karaa in dhexdooda ay isdagaalaan isla markaana garoonka saameyn xoog leh ay ku yeelato shaqadiisa wixii ku soo kordha xaaladda garoonka aadan cadde halkan ayaad kala socon doontaan asa ahaatee si aad ula socoto subscribe saar YouTube kana kadibna furo gambaleelka mahadsanid